الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. runtii aniga maanta codsaday shirkan jaraa'id waxaanu ku saabsan yahay marxaladda iminka haata jirta Soomaaliland waxa kale ku saabsan yahay baaq guud oo aan doonayo inaan gaarsiiyo xaaladdan iminka ummadda reer Soomaaliland waxa xaqiiqo ah oo dhab noqotay ummadda reer Soomaaliland in baryahan dambe la kala qaybiyay iyadoo loo qaaday oo loo kala qaybiyay xaafad gobol gobol iyo waxa loo yaqaan muxaafid iyo mucaarid iyo qolbajoog iyo qolqoljoog taasi waxay keentay in ummadii reer Soomaaliland iyaga la isku mashquuliyay oo meesha ay ilaaween in Soomaaliland cadow leedahay oo iyagii markii la isku jiiday in cadowgina maanta shaqeysanayo oo Soomaaliland runtii u baahan tahay in halgankii ay hor uga soo meel dhalisay in halkeedii ka sii wado waxa jirta oo aan doonayo farta inaan ku fiiqo siyaasad cusub oo iminka soo baxday oo la yiraahdo kala qaybi oo xukun ama divide and rule markii la ogaaday inaan dagaal waxba laga qaadaynin ay ummad ku adag go'aanaday qaatay ee aan la soo noqoshada goonistaga Soomaaliland ayaa waxa la bilaabay markaa in dagaalkii cadowgu waday inuu si kale u bedelo oo ay inuu kala qaybiyo waxaan dad halka inaan ka tilmaamo afar ilbaab oo imika inagu furmay oo runtii u baahan in si degdeg wax looga qabto oo cadowgu bilaabino ka soo galo waxa kamid ah kow waxa loo yaqaano ama dadka ku abtirsada fanka iyo suugaanta ee la yiraahdo nimanka faaninta loo yaqaano iyo nimanka loo yaqaano saxaafadda nimanka loo yaqaano ururada bulshada iyo madax dhaqameedka iyadoo la adeegsanayo oo la doonayo marka inta la furfuro in qofka la yiraahdo adigu waxa tahay qof Soomaalida oo ay wada leedahay adigu shaqo kuma leeyahay Soomaaliland oo halka qofka ama saxaafadda ka socda ama fanka ka socda ama madax dhaqameedka ama ururada bulshada ka socda halku isagoo dhinaciisa taagan qadiyadda Soomaaliland ka difaaci lahaa oo tilmaami lahaa halka uu ka soo jeedo iyo waxa uu rumaysan yahay in laga dhaadhiciyay in uu ka tanaasulo marka halkan waxaan leeyahay waxa jira afarta ilbaab oo Soomaaliland imka la doonayo in laga furfuro oo aan ka digayo waxa kale oo jira afarta ilbaab dad kamid ah oo iyagoo markaa qaadanaya shilimaad yar ayaa si ay fudud looga faa'iideysanaya waxaan kale doonayaa halkan ka tilmaamo marxaladda imka marino cadowga maanta Soomaaliland ay leedahay waa farmaajo waa madaxweynaha cusub ee imka la doortay waa nin ku soo kacay kacaankiisa aad bare waa nin la soo halmaalay waa nin ku soo dhaqmay waa nin siyaad bare oo ninkii dictatorka ee qarankan xasuuqay ee ay Soomaaliland ay ku weyday dad ka badan 500 oo kun oo qof ay barbartaagnaa waa nin u haysta ninkaasi inuu yahay haliyay u haysta haddaba waxaan idin sheegayaa waxaan oran karaa dawladihii kala dambeeyay imika laga sameeyay laga dhawaaqay Muqdisho iyo dawladii ka horeysayba waxaan ku tilmaami karaa inay sameeyaan afcaashi dawladihii Naaziyiinta ee kala dambeeyay ee Jarmalka waxay doonayaan inay ku xukumaan waxay doonayaan haddii ku qabsan waayeen inay markaa adigu kala furaan waxay doonayaan in heshiis aad la gasho oo afkana ay ku seexaan afkana wax kaaga sheegaan haddana ay ka baxaan waxaan oran karaa waa beenaalayaal heshiisyadii hal aan u galnay ay ka mid ahayd heshiiskii hawada xagu tagay heshiiskii lagu qabtay Djibouti ee ahaa inaan la siyaasadaynin waxa loo yaqaano maalgashiga investmentka farmaajo isagoo aan wali ku bariisan oo aan hagaajisan gurigiisii ayaa wuxuu talaabadii horse ku tagay dalka Saudi Arabia isagoo oo markaa bilaabaya inuu Soomaaliland ka dacwoodo ama Soomaaliland talaabo ka qaaday kashto waxaan oran karaa runtii halka ka muuqday oo ay tahay inay macnaheedu tahay anigu ilaa aan wax noqdo adoo ma noqonaysid ilaa anigu aan wax helo adoo ma helaysid ilaa anigu aan dood wanaag samayso oo dood ma leeyahay taas aan waxaan qabaa
aan marna Somaliland aan ka yeelaynin xukuumadaha faashistiga ee naaziga ee ka bilaabmay meesha la yaqaan Soomaaliya ee Somaliland ku jahaysan ay waxaan leenahay waa marka hore idinku guriga hagaajista waxaan la yaabanahay waqtiga dheer goorma ayaa Muqdisho ka soo bixi doona nin haliyay ah oo u dhaqma ka fakara sidee Soomaali hanbadeeda loo kala baadiyaa nin haliyay ah oo noqon sidii Anwar Saadaat markii uu dagaalkii Israa'iil ka guuleysan waayay ka degay Tel Aviv nin haliyay ah oo noqon sidii Mala Zanaawi oo sii daayay Eritrea nin haliyay ah oo noqda sidii madaxweynihii Umar Bashir ee wadanka Suudaan ee sii daayay Koonfurta Suudaan nin haliyay ah oo noqon sidii Nelson Mandela markii uu isu keenay dadkii la cunsureedinayay madooba iyo dadkii xukunka haystay waxaan leenahay waxa loo baahan yahay in laga fakaro sideebaha Soomaali geeska Afrika wada degan oo nabada oo si xalaal u wada shaqeysta oo wada nool oo wax walba ka heshisa si loo sameyn lahaa laakiin maaha aniguna aan noo kuwa kale ma burinayo maaha waxaan doonayaa markaan ku soo gabagabeeyo maanta waxa loo baahan yahay laba qodob waa qodobka koowaad in xukuumaddu dib ay uga fikirto wada hadalladii ay lahayd Soomaaliya oo loo eego shuruudo cusub oo ku saabsan meesha lagu qabanayo iyo dhexdhexaadiyaasha imanaysa waayo iyo dadka soo qayb galay waayo qodob kale oo loo baahan waxa weeye in baarlamaanku uu isaguna ka qayb qaato waxa iminka socda oo ah si loo soo saari lahaa xeer cusub oo damaanad qaadaya Soomaalinimada oo cadeynaya oo dhigaya discipline-ka la marinayo qof kasta oo xil ka qabta waxa la yiraahdo Soomaaliya iyo qof kasta oo markaa magaca Somaliland sita oo markaa sharaf dhac ka sameeya intuu muqso in iyadana shuruuc laga soo saaro oo dib loo eego shuruucdii xaarantimeysay in dadka reer Somaliland ay inta shilimaad qaarkood qaataan ay magaca Somaliland ay maxaa malaha wax ay la wareegayeen oo been tahay waxaan qabaa inay labada qodob ay labada qomaad loo baahan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi